أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. اللهم يسر العسير فإن تيسير العسير عليك يسير. فضائل المدينة هذه تني فضائل المدينة مقالة المدينة فضائل شيديوة ودرس ديني لها أن كبرنا علمي حديث كالنبي عليه الصلاة والسلام كارهان كتابك أها التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح وأنا درسي لبئي واللحظانات وحونا كسب سنة هي مقالة المدينة فضائل شيدي عالم كمركي الله في ريب لبن مقالة أبو فضل بدن مقالة مكة المكرمة هي مقالة المدينة المنورة هدي لبضوض الاسبربر ليغو هدانا وحا فضل بدن مقالة مكة سيدا أي جمهور أي قبان إمام مالك باوحو قبا سيدا إني مقالة المدينة فضل بدن ترى مركا هل كان وحا لوغا هدلايا مقالة المدينة فضائل الشيدة baa looga hadlayaa axaadiid ku soo aroortay iyo waxay ku dambeyn doonto ilaa qiyaam saaca isbedelka magaalada Madiina ku dhici doono axaadiid ku saabsan halkan waa lagu soo hadal qaadi doona an Anas waxa laga wariyay radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qaala nabiga wuxuu yiri al-madinatu magaalada Madiina haramun haramu إله با حرميي حرمدي لما قريرنا من كذا هالكاس لقى بلابو إلى كذا هالكاس انت لقى جارو رواية دان مركا هذا وي إبهامي سي لبا مكان أن لعي من بيشيكتي من كذا إلى كذا لكن روايات كلا أيا عديانو وحويان markii laga fiiriyo dhanka mashriq iyo maghrib bariga iyo galbeedka markii laga fiiriyo waxa xad u ah xarateynka labada dhul dhagax madow baa xad u ah dhanka kale januubka iyo shimaalka markii laga fiiriyo koonfur iyo waqooyi markii laga fiiriyana jabalu ayr iyo jabalu thawr labada jabal inta u dhaxayso magaalada Madiina xaramkeeda tayib riwaayad kale ayaa marka taa laga faa'iideysanaya marka xaram waaye macnaheedu waa maxay la yuqda'u shajaruha Madiina geedkeedii lama goynaayo wala yuhdathu luguma soo derinayo fiha Madiina dhexdeeda xadathun wax sharci khilaafsan magaalada Madiina geedkeeda la gooyi maayo riwaayadka kale riwaayadka qaarna waxay ku darayaan ugaarteedana lama ugaarsanayo halka marka waxa ku sugan daliil ah ugaarta magaalada Madiina iyo geedaheeda in la jaro inay xaraam tahay sida xaramu Makka oo kale laakiin waxay ku kala duwan yihiin wax lamaan oo ka waajibayo ma jiro oo magaalada Madiina geedkeedii hadii la gooyo ugaarteedii hadii la ugaarsado wax qofka arinkaas sameeyay ku waajibayo ma jiro laakiin laana haramul Madiina ayagu ma aha haramkaas nusuk amal mahal oo ma ahan oo a'maal hajj iyo a'maal umro lagu ma sameeyo laakiin haramu Makka waxa weeyaan waa mahal oo nusuk lagu sameeyo weeyaan farqigaas marka u dhaxeeyo waa xaraam ugaarteedii iyo geedkeedii in la jaro maca dalika hadana wax lamaan ka waajibayo ma jiro tayib hadana wuxuu yiri magaalada Madiina dhexdeeda lagu ma soo derinayo wax sharci khilaafsan bimaana amal oo kitaabka Ilaahay iyo sunnada nabiga khilaafsan lagu ma sameeynayo dilka iyo maal in la qaato dhulmi lagu qaato sidaas oo kale dhaca sariqada khiyaanada waxyaabaha lagu ma sameeynayo man ahdatha qofkii soo deriyo hadathan wax sharci khilaafayo qofkii magaalada Madiina gudaheed
wax sharci khilaafaya ku soo dariyo fa calayhi lacnatullaahi waalmalaa'ikati waannaasi ajmaciin buu yidhi iyadoo meel walba markii la joogo ay xaaraam tahay wax sharci khilaafsan in la sameeyo haddana markii magaalada madiine la joogo waciid shadiid baa soo arooray hanjabaad iyo goondi adag baa soo arooray habaar baa soo aroortay oo nabiga lacnad uu ku habaaray qofka arrinkaa ku sameeyey magaalada madiine gudaheed fa calayhi mankaa dushiisa ha ahaato lacnatullaahi ilaahay lacnadiis iyo walmalaa'ikati malaa'igta lacnadeed iyo wannaasi dadka lacnadood ajmaciina dhammaan xaal ay yihiin ayib marka in magaalada madiine ay tahay magaalo xurmo leh ayuu xadiidka noo faa'iideeyey oo ka duwan magaalooyinka kale iskabadda bani aadamka ku dhex nool in waxyeelo loo geystee xataa waxaan la ogoleen geedaha in loo bambaxo waxaan la ogoleen ugaadha magaaladaa joogto in loo bambaxo midna lama ogola qofkii markaa wax sharci khilaafsan oo laga reebay qofkii sameeyana habaar baa ku dhacday ayib وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي وحيري حرم ما أيا الله حرمي بين لابطي المدينة مقالة المدينة لبدا إذا طول نجح مذو ودحية على لساني لسان كيغان اللي حرمي أو إلهي سبحانه وتعالى حرميي magaalada madiino labadeeda dhul dhagax madow inta u dhaxayso waxa weeyaan al-harra sharqiya iyo al-harra al-gharbiya waxa xadeenayo labada dhul dhagax madow waaye magaalada madiino oo mashriq iyo maghrib ka xadeenayo halka koonfurta iyo waqooyiga ay ka xadeenayaan laba buur oo la kala yiraahdo cayr ama caa'irna waa la yiraahdaa iyo foor la kala yiraahdo tayib lisaankeyga ilaahay subxaanahu wa tacaala haa lisaankeygaa lagu xarimay oo bimacnaa anigaa caddeeyey waxa xurmadda u samaynaya waa ilaahay subxaanahu wa tacaala arrinkaana marka ilaahay wuu ii waxyooday lisaankeyga ayaana arrintaasi idinkugu caddaynayaa saasoo ay macna xurrima maa bayna laabatay almadiina ayaa la xurmeeyey nusqooyinka qaarne marxaban واكو حرم سيدا سيقرايا قال وحو يري أبو هريرة ويان فاعلك وأتى النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحو تغي بني حارثة ترير بني حارثة قال ليره تغي وبطن من الأوس وجلب أملان كترسن قبيلة أوس ليره وأنصارت qolada bani xaarifa la yiraahdo xaafad ay iyagu degeen ayuu nabiga yimid faqaala markaasa wuxuu yiri nabiga kaleey salaatu wasalaam araakum waan idin arkaya ya bani xaarifata qad kharajtum inad ka baxdeen min al-haram inad ka baxdeen haramkii magaalada madiino waad ka baxdeen oo haramka banaankii baad degteen saasan idin arkaya buu yiri macnaha asiga saa u maleeyay oo xaafada marka ay degeen inay xaramka ka baxsan tahay buu maleeyay markii hore dhannigiisuna cabiray thumma altafata nabiga wuu milicsaday dhulkii buu hadana si degan buu u fiiriyay dhulkii faqaala markaas hadana wuxuu yiri nabiga kaleey salaatu wasalaam bal antum fihi fil haram buu yiri haramka ku dhex jirtaan buu yiri aniga mooday inaad haramka ka baxdeen baan mooday bal waad ku dhex jirtaan oo xaramu madiina ayaad ku dhex jirtaan ma aysan ka bixin buu yiri dhanigii buu marka ka laabtay yaqiintii buu u laabtay halka marka waxa laga qaadanayaa ruuxa caalimka ah hadduu hadlo oo ala qalabati dhanni maladiisa qalabadeed asagoo raacaya hadduu hadlo kadibna uu baarbaaro mas'alada ay u soo baxdo sida sawaabka ah inuu marka cabiro hadana sida sawaabka ah inuu cabiro tayib عن علي وحال قوري رضي الله عنه قال وحوير علي ما عندنا أنك أكتين شيء ما أهاني إلا كتاب الله إله كتاب كيسي ما أهاني إيا وهذه الصحيفة ورقدا ما أهاني صحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي حقي سكاءهات علي بن أبي طالب وحال يري أهل بيت كنبي هداتهين
wax si gaar ah nabiga idinkugu sheegay oo shariicada ka mid ah miyaa jira su'aal noocaas la weydiiyay tiibuu marka ka jawaabaya wuxuu yiri annaga agtayni shay ma jiro oo qoran oo shariicada ahkaamteeda ka mid ah oo annaga ahlu beedka nabiga hadaan nahay uu annaga nagu khasisay nabiga kaleey salaatu wasalaam si gaar uu annaga noogu sheegay ma jiraan illa ilaahi kitaabkiisa maahane oo na dhaxyaala iyo warqadan aniga aan hayo waxa ku qoran maahane warqad buu hayay marka oo ahadiis uu nabiga kaga qortay taana marka way dhici jirtay wax cali ku gaar ah ma aysan ahayn oo saxaabada qaar kood markay maqlaan nabiga oo xadiis sheegay inay iyagu xadiidka iska qortaan warqada marka wixii ugu qornaa waxa ka mid ahaa sidatan al-madinatu magaalada madiino حرم ويا ما بين عائر إلى كذا جبل كلير هذا عائر أما عائر نوالير هذا لقبل أنت قلت حيصه إلى كذا رواية المسلم باسي عدينيسو إلى ثور كذا جوا جبل ثور جبل عائر إيه جبل ثور أنت قلت حيصه من أحدث قفكي سودري فيها مدينة إحدى حدثا وحشرع خلافا أو آوى أما صوتمه محدثا قف وحصود درينا يصوتمه أو وحشرع خلاف سن قف لا إيمانا يقف كي صوتمه أو مثلا النصري يقف خائن أما مجنجليسيو أما الدفاع صاصو كله فعليه من كادوش سهاها لعنة الله إله لعنة سئي والملائكة ملائكة لعنة ذي والناس ذاتك لعنة ذا أجمعين ضمان حال أيه وحو انت راعيي لا يقبل لغا أقبل مايو منه من كحقيس لغا أقبل مايو صرف توبو لغا أقبل مايو ولا عدل فرشنا لغا أقبل مايو ساسوا لغو في السراء وحاكا لغو في السراء لا يقبل منه من كحقي لغا أقبل مايو صرف صنع لغا أقبل مايو ولا عدل فرضنا لغا أقبل مايو وانا لك العكسين كرا بالعكس نوال لغو سمياء معاني ذا سالغو في السراء وقال وحوير النبي عليه الصلاة والسلام ذمة المسلمين مسلمين تا بلنتوت واحدة مدواي مسلمين تا قفكي أيقو بلن أي لقلان وحويان بلنتاس وإلى لنا قفكي مثلا بأي أمان سيان مجنجلية أي سيان ولو هل قفوض المسلمين تكمد قفكو مجنجلية سيو مسلمين انت وذاك لا قفك سيني نبتجليان ذمة المسلمين واحدة معناها ديساس يعني أمان كودا والصحيح هل هكسو فلو أمانك أما ضد بدن هكسو فلو مد شريف هكسو فلو أما مد وضيع هكسو فلو قال هدي مثلا مجنجلية للسيو واحد من المسلمين ومجنجلية سيو مسلمين انت وذاك لا قال كائني مجنجليان فمن أخفر قفكي مجن جبيو مسلم قفكي كم مجن جبيو أو قف مسلم قف مجن تيسكجر قفكي أوقع عنداف فعليه من كادوشي سهاة لعنة الله إله لعنة والملائكة ملائكة لعنة والناس ذاتك لعنة أجمعين ضمان حال أيهم لا يقبل منه من كحقي لقى أقبل ما يصرف الصنع ولا عدل فرضنا لقى أقبل ما ومن تبلى قفكي كولي يشو قوما قوم بغير إذن مواليه منك مواليدي سائدين كودي لعان كولي يشو ماشان آد أفيري قوم قفكي كولي يشو قوم أسيغا أوليدي سآن أهين قفكي كولي يشو كوبي أوليدي ساهايان إذن لأنتو فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولها مركة ودور نوعه ولها سيدي سبوا علاقة أو كده حيث قف كان يددك أسيق مواليدي سكده حيث أو سيد النصب كيو كلا ولها مركة وسيدح النوع مد وحاجر أوليد هذا ولاء العتاقة قفك هدي لحريو عدي أسيق حريسي باب مواليدي سا عدي حريسي عدن أهان كما ديغان كرو مواليه كما ديغان كرو كولاء العتاقة ليرا هذايو
xiriir baa ka dhaxeeyo oo way isku nusreynayaan oo waxa weeyaan berita asiga haddii wax dhaxla la waayo ayagaa dhaxlayaan wahaakada alwalaa'u luxmatun ka luxmati nasab waa midna waxa weeyaan walaa'u lxinthi baa la yidhaahdaa waa la isdhaarsanayaa qofkan qolo kale ayuu xilfi la galayaa wacad iyo heshiis in ayaga uu ka tirsan yahay xagga nusrada iyo isku hiilinta iyo iska warqabka wahaakada dagaalada inay isla galaan inay iscaawiyaan kaana marka waxaa la yidhaahdaa walaa'u lxinthi baa la yidhaahdaa kan xigana waxa weeyaan walaa'u lislaam qofka gaalka ahaa qofkii soo islaamiyey walaa'u lislaam buu ku leeyahay asigana marka saddexdaba marka isku dar qofkii qoom ka weli yeesho kuwii mawaalidiisa ahayeen idin la'aan qeyd ma hadday idmaan xataa kama weli yeelan karo فعليه من كادوشيس لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلهي لعنة ديس ملائكة لعنة ضدك لعنة دوشيها أهات لا يقبل منه من كحقي لقى أقبل ما يصرف لقى أقبل ما يعني الصنع ولا عدل فرضنا لقى أقبل ما طيب مرجع عديد وحال لقى دليل سنة يا قيبتي السهرة المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا من أحدث فيها في المدينة ويان ضميرك حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل انت ويان محل شاهد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيري أمرت وحالي أمري بقرية قرية أي لا أمري قريضو تأكل عنيس القرى قريوينك عنيس هذا في حديثك قريو أي الله أمري بمعنى أمرني ربي بالهجرة إلى قرية ربي جيبا وحوئي أمري قريو إن أهجرودو قريضو مقالة المدينة لغا وضا قريضو صو عنيسو قريوينك كلا عنيسو محال لغا وضا قريوينك كلا أي كغالب نقني ويكحق بدني ويكأتكانيسا بمعنى مقالة مدينة أهل كيدي أو مسلمين تأه باوحي كأتكانايان بلاد كلا أهل ذي كأتكانايان ومسلمين تا صليق قوضا مقالة مدح ذوضا مقالة مدينة أهل هل كابا مركا غزوات كي إيو ويرارذي أي كقادايان مركاسي قبصانايان ويفورانايان بلاد كلا إيو مقالوين كلا أي فورانايان ساسا لو جيدا قرية نوعاس إنان أهجرودا الله أمري أو قريوينك كلا كأتكانيس يقولون وحيدها يا ناس يثرب بيدها يا قرية مقعد يثرب بيكم مقعابا يا طيب وهي قرية أصنع المدينة مدينة واي نبي عليه الصلاة والسلام بأمرك مقعب شيء تنفير قرية وحي إريني الناس ضدك بي إرينيسا كما ينفي الكيرو بوفن كسدو إرينايو خبث الحديد برت وسق ذا سدو إرينايو تنفي قريداس أمام الدينو إسكده وحي إرينيسا الناس ضدك بي إرينيسا ومعناها ضدك حن حلقي النبي عليه الصلاة والسلام بالغها الله يا زمن كي نبي أما وحالقها الله يا زمن كي الدجال دجال زمن كي سمر كي لقارو وحكبها يا مقالة مدينة دتك حن أو إذن إلا الدجال أسيق مقالة مدينة ما سوقلي كرو مقالة مكان ما سوقلي كرو سيدان أركي دونه عالم كإنتي سكلنا وتقايا لكن وحي جوغي ومنافقين أهائي حما ويكبها يا مقالة دجال حقي بي آدايا سيدا صالو جيدا معنا magaalada marka dadkii bay erinaysaa sida buufinka waxa weeyaan buufinka hadda waxa loo jeedaa bahalka oo dabka lagu afuufo oo tumaaladii beriga hore ay isticmaali jireen dabkii buu shidayaa oo uu kululeenayaa birti marka mirirka lahayd hadii dabka la geliyo buufinkana lagu sii afuufo waxa weeyaan birti waxa ka baxayo mirirkii baa ka baxayo markay kululaato kale sidaas oo kale yaani dabka oo buufinka uu shiday خبث الحديد سدو أبابئيو مقالة مدينة أيضا سدا صوكرة أي إساق ساريسا محان إرادة يددك حنحن أي إساق ساريسا
marka waqti gaar baa loo jeedaa hadda waqti walbana ma ahan oo waqtiyada qaar waa suuroodaa inay iska joogaan dadka xunxun waqti gaar baa laga wadaa sida xilligii dajaal oo kale laga wadaa dad fiican inay ka baxaan waa iska suuroodaa waqtiyada qaar oo hadda nabiga geeridiisa bacdigii mucaad iyo abu ubayda iyo ibn mas'uud iyo daa'ifo kale cali iyo dalha iyo zubayr iyo amaar iyo kuwa kale ayagoo kamid ah runtii min adyab al-khalqi kamid ah haddana magaalada madiina way ka baxeen oo meelo kale ay u wareegeen nabiga geeridiisa bacdigii marka xadiidka wuxuu quseeyaa dad gaar ah iyo waqti gaar ah ayuu quseeyaa saas way macna an abi humayd radiyallahu anhu aqbalna waxaan qaabilnay yani aan ka soo naqanay maca nabiy sallallahu alayhi wa sallam nabiga maciisan soo naqanay min tabuuka min ghazwati tabuuka ayaan ka soo naqanay sanadka sagaalaad ee hijrada waa ghazwatu tabuuka aan ka soo naqanay annagoo nabiga la socono xataa ashrafna markaan soo foraarsanay cala almadiinati magaalada madiina aan ku soo foraarsanay oo magaaladii ay noo soo muuqatay waa faqaala wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam haadihi daabatu buu yidhi haadihi magaaladatan daabatu daaba waa madiina waa la yidhaahdaa daabana waa la yidhaahdaa marka nabiga calayhi salaatu wasalaam aad buu u jeclaa magaalada madiino yacni markuu safarka ka soo laabto wuu u soo degdegi jiray oo magacyo badanna wuu u bixiyey asmaadeeda marka tayba ah ka mid ah magacan hadda taaba ayaa ka mid ah madiino ayaa ka mid ah asmaa fara badan bay leedahay kathratu lasmaa'na tadullu calaa sharafi almusamma shayga la magacaabayo sharaftiisa ayay ku tusinaysaa magacyada faraha badan ayib waa kow وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة وحيله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقلي يقول حال أصيغ أردهاي يتركون ناس كوحي كتجي دونان آخر الزمان مركي لقارا لقاها الله المدينة مقالة المدينة كتجي دونان دتكو آخر الزمان مركي لقارا magaalada madiinay ka tagi doonaan ala khayri ma kaanat madiino siday ahayd sida ugu khayrka badan xaal ay ku sugantay intay soo martay magaalada madiino jiritaankeeda markay ugu fiican tahay ayadoo ah oo barwaaqada iyo dhaqaalaha markii la fiiriyo iyo horumarka ay ku tilaabsatay magaalada markii laga fiiriyo markay ugu fiican tahay ayadoo maraysa ayay dadka ka tagi doonaan uu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam magaalada madiina laa yaghshaaha magaalada dabooli maayo yani degi maayo illa alcawaafi maahane kuwii quudka dalbaayeen waxaa degaayo kuwii quudka dalbaayeen waa maxay kuwii quudka dalbaayeen dugaagti weeyaan yuriidu nabiga wuxuu u jeedaa calayhi salaatu wasalaam عوافي السباع دواجا كوودي قوت كدلبايا iyo wadayri shimbiraha kuwooda quudka dalbaaya shimbiro oo quud raadinaya iyo dugaag waxay cunaan raadinaya magaalada degayso bid ayadoo magaalada intay adduunyada soo martay magaalada madiina markay ugu fiican tahay xagga cimaarada siday u camiranta siday thimaar u leedahay siday u qurux badan tahay siday u hormarsan tahay siday u dhisan tahay markay la fiiriyo markay ugu fiican tahay ayadoo marayso bay dadku ka tagaayaan isaga baxayaan waxa magaalada deegaan ka dhiganayaan duwaad iyo shimbiraha iyo haadadka ayaa magaalada deegaan ka dhiganayaan wa aakhiru man qofkan ugu dambeeya mankoo yuxsharu la soo xashrinayo la soo kulminayo oo bimacnaa yamuutu dhimanaya laga wadaa hadda xashrigii baa la idlaaqay moodka lagu idlaaqay maxaa yeelay moodka xashriga wuxuu ka ratibmayaa moodku ka ratibmayaa waako marka macnuhu waxa weeyaan wa aakhiru man kan ugu dambeeya mankoo yuxsharu yamuutu dhimanayo raaciyaani laba qoosaar waa raaciyaankaasoo min musaynata qabiilada musayna xaggii ka ahaadeen raaciyaankaasoo yuriidaani doonayaan
almadiinata magaalada madiina doonaya raaciyaankaasoo yanciqaani qeelinayaan biqanamihimaa arigoodana u qeelinayaan fayajidaanihaa madiino ayay helayaan waxshan xaal ay tahay mid cidlaa ayay helayaan xataa idaa balagaa markay soo gaaraan raaciyaanku haniyata alwadaaci sagootinta dalcaddeeda markay soo gaaraan kharraa way dhacayaan raaciyaanka calaa wujuuhihimaa wejiyadooda dushii bay ku dhacayaan dadka ugu dambeeyaoo dhimanaya waxa weeyaan laba qoosaar oo qabiilada musayna la yidhaahdo u dhashay waa qabiilatun min mudar waaye musayna labadaa qoosaar waxay rabaan inay magaalada madiina soo galaan way qeelinayaan arigoodii ayay u qeelinayaan waxay rabaan inay arigoodii soo kaxeeyaan xilligaana waa markay saacadda soo dhabaatay magaaladii bay marka helayaan ayadoo cidla ah oo ruux bani aadana uusan degnayn magaalada sideedayna isaga qurux badan tahay ilaahay cilmigiisa waxaa ku nool bas waxa weeyaan duwaagga iyo haadadka unbaa isaga nool markay soo gaaraan labadaa qoosaar haniyat alwadaac meel la yidhaahdo markay soo gaaraan ayay iyaguna dhacayaan oo weji bay u dhacayaan halkaasay marka ku dhimanayaan labadaa qoosaar magaalada marka hadda macmuurka ahoo la jecel yahay oo dadkeedii ay sida tan ay dadka u soo dhabeeyaan saasuu xaalkeeda ku dambayn doonaa inay dadka isaga baxaan iyadoo aad iyo aad u barwaaqo badan can sufyaana waxaa laga wariyey sufyaankaasoo ibni abi zuhayr radia allaahu canh annahu sufyaan qaala sufyaan wuxuu yidhi samictu rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam aan maqlay yaquulu xaal asigoo dhahaayo tuftaxulyamanu yaman baa la furan doonaa yaman baa la furan doonaa oo muslimiintii ayaa qabsan doonaa ayib oo berigii hore masiixiyiin baa halkaa haysteen yaman baa marka la furan doonaa faya'tii qowmun qowm baa imaanayaan marka qoomkoo yubisuuna kaxeenayaan daabayaashooda oo ya-da in la godo iyo in la kordhiga labadaba way bannaan tahay daabayaashoodii ayay kaxeenayaan fayataxamaluuna waxay xambaarayaan marka biahlihim ahalkoodii ayay xambaarayaan waman ayay xambaarayaan adaaca adeecay manka hum qoomkaa adeecay yaman markii la furto kadib qoom ayaa imaanaya oo ka mid ah dadkii xaadiray furashada yaman bay ka helayaan wanaaggeedii iyo barwaaqadeedii markaasay magaalada madiine imaanayaan ayagoo daabayaashooda kaxeenayaan waxay marka magaalada ka daadgureynayaan oy ka qaadayaan magaalada ay kararayaan ahalkood iyo wixii ayaga adeeco warkooda raaco yaman bay marka usoo guurinayaan macnaha yaman intay ka helaan bay yaman usoo guurinayaan ahaladooda isla markaa sidaa ay samaynayaan walmadiinatu magaalada madiinana xaal khayrun lahum ay tahay ayaga kuwa u khayr badan low kaanuu yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen magaalada madiine ay ka guurayaan baana u khayr badan oo yaman ooga khayr badan hadday ogaan lahaayeen maxaa yeelay magaalada madiino xaramu rasuulillaahi waaye sala allahu calayhi wasalam oo nabigu wuu daris la naqanayaa qofka magaalada madiino degan waa meeshii waxyiga ilaahay uu ku soo deganay waa meeshii barakaadka ay ka soo deganaysa marka magaalada madiinana u khayr badan isla markaa ay iyaga magaalada ka guurayaan oo yaman u guurayaan taa marka way dhici doontaa labo wa tuftaxu shaamu shaam baa la furan doonaa faya'tii qowmun baa imaanaya marka qoomkoo yubisuuna kaxeenayaan daabayaashooda fayataxamaluuna biahlihim bay xambaarayaan iyo waman bay xambaarayaan adaaca adeecay manka hum ayaga adeecay walmadiinatuna xaal khayrun lahum qoomka mid u khayr badan ay tahay low kaanuu hadday ahaan lahaayeen qoomkaa yaclamuuna kuwa wax garanaayo shaam baa la furan doonaa suuriya iyo dimashqa iyo lubnaan qoom baa imaanaya marka oo xaadiray furashadii shaam ayagoo daabooyinkooda kaxaysanaya ahalkii magaalada madiine ka joogay
iyo dadkii ayaga adeecayo magaalada Madiina joogay ay rarayaan oo Shaam bay u rarayaan isla markaana marka Shaam waxa uga khayr badan magaalada Madiina uga khayr badan loo kaano yaclamuuna haday ogaan lahayn ayaguna xaqi ka soo helayaan macna طيب haddana wuxuu yiri wa tuftahu al-Iraq Iraq baa la furan doona fayati qawm ba imaanay qawmku yubisuna kaxeenaya daabooyinkoodi fayatahammaluna bi ahlihim bay xambaarayaan waman bay xambaarayaan adaacahum ayaga adeecay wal madinatu nahal khayru lahum mid u khayr badan ay tahay law kaanu yaclamuuna haday ogaan lahaayeen kolka nabiga kaleey salaatu wassalaam waxyaalaha uu sheegay dhamaan way dhaceen oo Yemen waa la furtay Shaam waa la furtay Iraqna waa la furtay dad halka u guurayo deegaan ka dhigtayna way jiraan arintan marka waxay ka mid naqanaysaa nabiga kaleey salaatu wassalaam mucjizaadkiisa ay ka mid naqanaysaa waxyaabaha asiga nabinimadiisa tusinayo ay ka mid naqanaysaa maxaa yeelay umuur geybiya ayuu ka hadlay sidoo asiga oga hadlay bay haddana wixii u dhaceen marka waxa weeyaan waa mucjizo oo kamid ah mucjizaadka nabiga kaleey salaatu wassalaam عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك وحيري إن الإيمان إيمانك ليأرز إيمانك وصد النمايا إلى المدينة مقالة مدينة أصد النمايا مقالة مدينة أيو إيمانك أصد النمايا هاي كما تأرز الحية أو يصد صدا أي أد النميسو إلى حجرها قد كيدنا أي أود النميسو ساسو كلا دتك إلهي أوليدي سا أهل الله جاء مقالة المدينة سقو إيمانا يام واكو مقالة المدينة أي سقو إيمانا يام ساسو تلماما يا نبي عليه الصلاة والسلام كي دقو إيو كي زيارة حبيبك وإيمادو كدب هذا إسكال تبا أهل الله يا مركب مقالة ويجعليهن أدون كمال والبيك جوجان قلبي وضوء ويكو عمرنت هاي مقالة المدينة جعل كذي اللي حبيبك يا هلك محن إراداي الصوه جرودي أو هلك دعوتي سئي ودينتي سئي كحوجي ستي هلك أبونا كو جيريودي هلك أبونا كو أسني هاي مسجد كو أسجد بسيبه هلك كسميسن قبرك سا هلك meel waybo marka dadka muuminiinta ay adduunka ka joogaan mar'un ki xaadirin waa ku haminaya inuu xaadiro oo uu soo ziyaarto magaalada ayada ki kalena uu xaadirayba ki kalena uu wadegan yahay basaas way macna an sa'd waxa laga wari radiyallahu anhu qala wuxuu yiri sa'd sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan maqlay yaqulu hal asigo oo dhahayo لا يكيد أهل المدينة مدكر أحد مدكر إلا مع أحد ودلالا يا كما ينمع الملح عصبة سيدي يقول دلاليس في الماء بيها دحدي يقول دلاليس وكذا سعد بن أبي وقاص وحير النبي كان مقلي عليه الصلاة والسلام أصيغو دها أهل المدينة أحد مدكر وما هجر صدق oo kuma sameeyo hagardaamo ha iyo dhibaato ilaa haduu ahad ahlu madiina uu dhibo waa dhalaalaya ahadka sida cusbada biyaha ay ugu dhalaasho kale ayuu u dhalaalayaa wal iska nabadgeliya ahlu madiina arintaas waxay qabsatay Yazid ibn Muawiya ninkii la dhihi jiray kale wuxuu ahaa ninkii ugu horeeyo doonay ahlu madiina dhibaato la doonay وقعدي لديه جري وقعة الحرة أكله أصيغو الشاب أو حق بدن أيو مقالة مركو دباتو جستي كدب أوردنتي يزيد بن معاوية الدربدي با مركو وحوي أن حديث كان ينقص قادن جرينو مقالة مدينو يعني أهل كيدي أحد مدبو إلا هدو دبو أحد كاسو دلالة يا سيدا عصبدا أي بيها دحدي أي وقود دلالة يسوكله طيب عن أسامة وحال قوري رضي الله عنه قال أسامة وحيري أشرف النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحو دل استاغي على أضم رفيس أضم من آضام المدينة مقالة المدينة رفيس يدي إذا كمد أيو دل استاغي
faqaala markaasaa wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam hal tarawna maa araa waxaan aniga arkaayo ma arkaysaan buu yidhi saxaabadii buu su-aashaa weydiiyey innii aniga la araa waxaan arkayaa buu yidhi mawaaqica alfitani fidnooyinka meelaha ay ka dhacayaan baan arkayaa khilaala buyuutikum guryihiina haa dhexdiina xaal ay ahaatay fitanta ka mawaaqici alqadri madarka makaanu dhicidyadiisa oo kale ay u dhacayso fitanta dhici doonto mustaqbalka ayaa hadda lee tusinayaan u jeedaa buu yidhi sida jannada iyo naartaba loo tusiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam baa waxyaalaha dhici doona siday u dhici doonaan loo tusiyey marxaban wuxuu ishaarayaa marka dilka cuthmaan ibni cafaan buu nabiga ishaarayaa calayhi salaatu wasalaam iyo dhibaatooyinkii ka dambeeyeen dhibaatooyinkii ka dambeeyeen waxyaalaha buu ishaarayaa iyadana sidaasoo kale min aclaami nubuwati bay ka mid tahay nabanimada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxyaalaha lagu garanaya ayay ka mid tahay ee mucjizaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nabiga siiyey can abi bakrata waxaa laga wariyey nufayc ibn alxaaris weeyaane radia allaahu canh can الnabiyi sala اllahu calayhi wasalam wuxuu ka sii wariyey qaala nabiga inuu yidhi laa yadkhulu lmadiinata magaalada madiino gali maayo rucbulmasiixi masiix argagaxiisa gali maayo masiixii addajaali ee beenta badnaa lahaa madiino waxaa u sugnaadeen yowma-idin maalintaas 7 abwaabin 7 albaab calaa kulli baabinna waxaa ahaadeen malakaani 2 malag masiixu dajaal fidnadiisa aad bay u xoog badan tahay waxyaabo khabaariqulcaado ahne waa laga daahirinayaa oo asigana lagu fidneenaayo dadka aan ahlu iimaanka ahaynna lagu sii fidneenaayo kolka adduunyadana waa wareegayaa oo meel walba wuu tagayaa laakiin magaalada madiine iyo magaalada maka ma gali karaayo ahlu madiina marka way ka badbaadayaan dajaal rucbigiisa iyo khoofkiisa cabsiga dajaal laga cabsanaayo oo amaakinta kale sida dajaal inuu tago looga cabsanaayo wuuna tagi doonaaye magaalada madiina looga cabsan maayo magaalada madiina ma tagaayo macnaha waa laga aamin naqanayaa dajaal isla markaas oo magaalada madiino maalinta dajaal uu soo daahiri doono oo rucbigiisa magaalada madiino uusan galaynin magaalada madiina 7 albaab oo laga galay leedahay maalintaas albaab walbana waxaa taagan 2 malag oo waardiye ka haya dajaal inuu magaalada u soo gudbo dajaal marka waa ka warqabyaa asiga waana arkayaa malaa'igta waxyaalo khabaariqul caadaad baa asiga la siiyey uma soo dhawaanaya marka magaalada madiino magaalada makana sidaas oo kale tayib وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة وحير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي رسولك سوحير على أنقاب المدينة مدينة ودوين كيدا جمع نقب ويان مدينة ودوين كيدا دشي أي أهادين ملائكة لا يدخلها مدينة قال ما يطاعون طاعون ولا الدجال قال ما بل عجائبتها ايه مدينة ودوين كالله مرو والباب إذا تضوضا احنا اللوغا مرو ودوين كاس ملائك باكو السجن الباب ذي ملائك باكو السجن مقالة ذي بيواردية كهايا كلكا لو والحانوت بمقالة ذا قال مايا cudurka taacuunka la yiraahdo magaalada madiina ka dhici maayo oo gali maayo dajaalna magaalada madiina gali maayo taacuunka marka waa nabro ka soo baxay meelaha jilcan ee jirka ka mid ah ee holac badan ee lagu dhamaado oo lagu baabao marka taacuun badan baa adduunka ka dhacay meelo badan buuna ka dhacay laakiin magaalada madiino wiligii taacuun ma uusan ka dhicin nabiga calayhi salaatu wasalaam mucjizaadkiisii ay arrintaa ka mid noqonaysaa lama soo guurinin meelayow badan baa la soo guuriyey cudurka daacuunka inuu ka dhacay laakiin magaalada madiino inuu daacuun ka dhacay lama soo guurinin
dajaalne asigeena ma gali doono magaalada madiino malaa'igta ka erinayso sida buu nabiga yiri calayhi salaatu wasalaam arintan marka ayadana mucjizaadka nabiga ay ka mid noqonaysaa dhan kale markii laga fiiriyane magaalada madiino fadligeeda iyo qiimihiina arinta way muujinaysaa xadiiska dhanba sida bay tilmaamayaan عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحيره ليس من بلد مجرى إلا سيضعه بلدك وحا كتب دونه أما وحا قلي دونه الدجال سيدخله ساسو شارع قفص وحا قلي دونه أو كسو عن دونه دجال إلا مكة والمدينة معها حديث كان باب مكة كسو داري مكة إيو مدينة معها مكة إيو مدينة ولا صو استثناء ضيو الدجال مقالة فضلك أيغو أي ديريهن مقالوين كالي كمتا كلي ما أهان جيدوه ذا لجاري مايو أغارت أذن لما أغار سرايو أوكليا حمان لغم السمانايو أوكليا ما أهان وحويان وحكمت أو حيابها أيغا إلهي كفضلي ومقالوين كالي كجد ويهن دجال إنو سنقلي دون المقالة مكة إيو مقالة مدينة له الدجال وحا أصغناد له الدجال وحا أصغناد من نقابها واكو مدينة ودوين كذا حق نقب وضوء ليس له عنده ليس له دجال ومصغنان من نقابها مدينة ودوين كذا حق نقب وضوء ومصغنان إلا عليه نقب قادوش سأل ملائكة ملائك باءهات صافين حال أيهم قوة صفا يحرسونها حال أي وارديين أيام مقالة مدينة ليس له دجال ومصغنان من نقابها مدينة ودوين كذا حقه نقب وضوء ومصغنان إلا عليه نقب قادوشي سأل ملائكة ملائك باءهات صافين حال أي ينقوا صفا يحرسونها حال أي وارديين أيام مقالة ثم ترجف المدينة مقالة مدينة ويقلقلني بأهلها أهل كذا إلا قلقلني ويدقدقاقي 3 رجفات قلقل شيال أو صدحة مركي قلقلته فيخرج إليه الدجال وحاء بحايو كل كافر ومنافق باء بحايو أما فيخرج الله إلهي وصوص سارايا مسقين كل كافر ومنافق بو إلهي مقالة كسارايا دجال بيسوء آذايا دجال بيمركا النصرين آيان ويقرب استاقايا إلهني موشاقان آيا دجال تابي مركا كراعايا وحي قال أها وحي منافق أها مقالة ويكبحايا مؤمن خالص با مقالة كهرايا دجال مركا مصو قالي كرايا طيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أبو سعيد حويري حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شيكيي حديثا شيكو حديث كاسو طويلا أورنيه عن الدجال يكشيكي دجال حال كيسا إيو وحو سمين دونو إنو إلا يهي إنو إلهني مشيغان دونو إنو بلايا يهي مالنتي أبونا آدم إلهي أبو ري إلى قيام الساعة لغا قارو فتن الدنيا دا كدا عيسى فتنة الدجال وحكوين إني سنجرين أريمها أبو نبي نوغا شيكي عليه الصلاة والسلام دب بظن إني كفد نوغا ويراع عيان أصير حديثا طويلا عن الدجال فكان في مام الذي وحاها حدث رسولك أنك به ما قلنا شيء أن قال رسولك إنه يجري هذا الذي نبي نو شيء وحاكم إذا كان يأتي الدجال دجال أيا إيمانا والحال هو الدجال محرم عليه من لقى حرم يؤيه أن يدخل إنه قالوا نقاب المدينة مدينة والدوين كذا إنه قالوا أيو إيمانا ينزل الدجال وحو دقايا بعض السباخ عسب إيلدا قاركات بو دقايا التي سباخ ذا صور بالمدينة خارج المدينة مدينة بنان كذا أها دول أو عسبولا اللي يرادو مقالة بنان كذا دول كاسو دقايا فيخرج إليه الدجال وحا أصابحا يومئذ مالنتاس رجل با أصابحا رجل كو هو رجل كخير الناس دتك حلقا جوغا نينك أغو خير كبدا أو من خير الناس كمد دتك أغو ما خير بدنا لكن وكمد يهي وشك من الرابي
إبراهيم بن سفيان باوحو الشيغي أو مسلم حقي كورينايو كما في صحيحه نينكا لا تلمامايو خضر إنو يحي هدي خضر مركا وانولي هاي لي يراهدو خضر ويان بو يري مركا نين أو مركا dadka xilliga jooga ninka ugu khayrka badan ama kamid akhyaarta kamid ba dajaal u soo baxay fayaqulu wuxuu dhahayaa rajulkii ashhadu waxaan qirayaa annaka adiga ad-dajjal dajjal inaata adan ilaah ahaan ha dajjal inaata tahay baan qirayaa buu leeyahay alladhi dajjalki oo حدثنا عنك حقا ونوغا شيكي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه دجال شيكي سو نوغا شيكي دجال كي إلهي رسول كي سو نوغا شيكيات تهي ساسان قلا يا بولا رسول والبو إلهي رسول شو صادري كمد دجال واك شيكي ومدي سنوا اوغدغي نبينا عليه الصلاه والسلام سدا سوكلو ومد اوغدغي انيغو نول حدو سو ظاهرو aniga idin kaga filnaanayo nabiga kaleey salaatu wasalaam astaamihiisa iyo xaaladkiisana si wanaagsan buu nabiga u sharxay kolka dajaalkii nabiga uu noo sheegay baad adigu tahay buu leeyahay ninka fayaqulu dajjal marka wuxuu dhahayaa dadka asiga taageersan buu la hadlayaa araayta bal iisheeg buu leeyahay in qataltu hada kani hadan dilo ثم أحييته كدبنا هذا أن صنوا ليه هل تشكون مشكين إنسان في الأمر أرين كما كشكين إنسان نين كان هذا أريجا إيجاه ريمت هدي أن دلو كدبنا أن صنوا ليه ميات شكين إنسان إن أريجا إله أرين كوجدا إله نمدي سوجدا إن إله هي ميات كشكين إنسان فيقولون مركزا waxay dhahayaan yahuuda ayaa raacayso iyo dadkii ahlu shaqaaba ayaa raacaya fayaquluna waxay leeyihiin awliyadiisi waay la ma yamashakine asiga marka waxyaalo ilaahay u sakhirayo khabaariqul aada ayaa jira oo uu sameyn karaayo istidraaj daraadi baana ilaahay ugu sakhiray waa lagu sii sabaansabaaya waa lagu sii dhuminaya فيقتل الدجال مركا ودلايا هو رجل كيبو دلايا ثم يحيي الدجال هي رجل كيبو نولينايا انتو دلو ايو نينكي سو نولينايا الهي قدرتي سئي ومشيئه الهي ويان وحو سو نولينايا فيقول مركا وحو دحايا رجل كي ويان حين يحيي الدجال هي رجل كمركو سو نوليو والله أنكو دارتي ما كنت معها ننقب هراء أشد متكدر ناشبدا بصيرة حاجة هبصشدة مني أنا حاجة اليوم ما هدم بكسي هبصدي بين الدجال تهيبوا لي ما دام وحدي لي سيد أدنى وحصون ولين يسيد وصدوا النبي النوشة عليه الصلاة والسلام والنبي النوشة الدجال على مدي سوء تهي إنه مقتول كصون ولينا كل كبصيرة إذا وابسي زائدة يو علامتي إيو أستانتي يا هذا سي أغادي بولي فيقول الدجال وحورها يا مر أقتله رجل كان واندلا يا بولي مركلة فلا يصلب عليه الدجال مركلة قدر مايو مركلة مدلي كرايو إلهي سبحانه وتعالى مكر سينا يؤينو دلو مركلة طيب مركا دجال سدا ويان حال كيسو waxyaalahaas oo asaga istidraajka loo siiyay cirki buu la hadlayaa biyaha soo day buu leeyahay roobka soo day oo dhulkii buu la hadlayaa nabaadkii soo saar buu leeyahay wax walba sidoo asaga yiraahdo bay naqanaya waxyaalaha marka khawaariqul aadaadka oo asaga istidraajka loo siiyay baa ka daahiraya markaas yahuuda iyo wixii ahlu shaqaaba intuba ay wada raacayaan macna badan ma lahan qofka inuu la yimaado waxyaalaha khawaariqul aadaad waxyaalahaas oo khawaariqul aadaadka qofka haduu la yimaado waxay ku xiran tahay asiga nooca qofka uu yahay bay ku xiran tahay hadii qofka uu yahay waxyaabaha khawaariqul aadaadka la yimid rasuul ilaahay soo diray haduu yahay mucjiza la yiraahdo haduu yahay qof ilaahay awliyadiisa oo caabid oo taqi haduu yahay qofka waxyaalaha khawaariqul aadaadka ay ka daahireen كرامة لي رهلا مركز
haddii marka uu yahay sidaanoo kale faasiq hadduu yahayne lama yidhaahdo karaamo lama yidhaahdo istidraaj baa la yidhaahdaa istidraaj baa la yidhaahdaa markay asiga rabitaankiisa ay waafaqayso haddii rabitaankiisa ay ka hor imaanaysana ihaana la yidhaahdaa ayib magacyada ay ku kala duwan yihiin hadba marka shakhsiga waxaan soo bandhigay bay ku xiran tahay can jaabirin radiyallahu canhu jaa'a acraabiyun nin reer baadiye ayaa yimid annabiya ayuu u yimid sala allahu calayhi wasalam fabaayaca acraabiga nabiga ayuu la ballamay cala alislaam yuu kula ballamay nin acraabi ah oo magaciisa qays ibnu xaasim la yidhaahdo ayaa nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam islaamkuu nabiga kula ballamay wuu soo islaamay fajaa'a acraabiga wuu yimid min alghadi beri ayuu yimid maxmuuman xaal asagoo la qandhaysiiyey asagoo qandhaysan maalintuu soo islaamay maalintii xigtay ayuu nabiga u yimid asagoo qandha ay hayso faqaala acraabiga wuxuu yidhi aqilnii ii celi baycadayda baycada ii soo celi buu yidhi bimacnaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu kula ballamay islaamka bacdigii inuu magaalada madiino sii joogo oo magaalada uusan ka tagin oo nabiga maciisa uu negaado magaalada uu ku negaado ee islaamnimadan ka naqanaya ma ahaniya marka waxa uu ka hadlayo waxa weeyaan magaaladan ma sii joogi karo magaalada madiina xilliga waxay ahayd magaalo cudur badan bay ahayd magaalo waxay ahayd oo biyaha iyo waxyaalaha ay ka dhaxqulqulaan oo maxaan idhaahdaa kaneeco badan oo malaariya badan bay ahayd marka wuxuu leeyahay magaaladan uu u soo hijrooday oo aan kugula ballamay inaan sii joogo adiga macaaga ma sii joogi karaa waan ku xanuunsaday magaalada aqilnii ii celi baycada aan kula galay oo ah inaan magaalada kula sii joogo ha magaalada ma sii joogi karo waan iska laabanaya fa abaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuu diiday ثلاث مرات سدح مر بو نبي ديداي عليه الصلاه والسلام فقال مركز النبي وحي عليه الصلاه والسلام واكو فقال وحي النبي عليه الصلاه والسلام المدينه مقالده مدينه كالكيري بوفكي او كلا ويان بو او دبك الشداي تنفي وحي اريني مدينه خبثها waxayda xunxun bay erinaysa dadka xunxun bay erinaysa wayansacu waxa maxan iraadaay saafi naqanayo dayibuha keedi wanaagsanna saafi buu naqanayo waxa saafi naqanayo keedi wanaagsan waxa weeyaan wasaqdeedana ayadaaba iska erinaysa waxa xun khabadkeeda waxa xun way erine tayibkeeda keedi fiicanna saafi buu naqanayaa marka magaalada iska sii joog weeyaan ha ka tagin magaalada qandhada iyo cudurka magaalada xilliga ka jirayna nabiga calayhi salaatu wasalaam baa ilaahay bariyay inuu qandhada iyo cudurka magaalada inuu ilaahay kararo oo meel kale ilaahay u raro subxaanahu wa tacaala axaadiis kale oo soo socoto ayaan ku arki doonaa ayib can anas radiyallahu canhu can الnabiy sala allahu calayhi wasalam qaala nabiga wuxuu yidhi اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة اللهم يا الله الله يو اجعل بالمدينة مقالة مدينة يال ضعفي ما كي لبلاب كي يال جعلت أدي شيء بمكة أدي شيء من البركة نحال وهذا ما مقالة مدينة بركة مقالة مكة أدي الشيء لبلاب كينا مقالة مدينة يالبو النبي عليه الصلاة والسلام واكو يعني سوس كيدا يومت كيدا إنه إلهي بركة ثمار تدي وحيدا دنبا إنه إلهي بركة قلي إن كبدا أنت مقالة مكة وحيدا إلهي بركة سبحانه وتعالى وأنا صدا صو مقالة مدينة وحيدا دن وحويان صاعدا يومت كيدي وحيدا دنبا وحويان wax barakaysan oo ilaahay barakeeyay waay bidacwati nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa an aisha radhiyallahu anha qalat waxay tiri aisha lama qadima rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ilaahi rasuulkiisa al madina tamarku soo galay maalin isniin bay aheedayo bisha rabiicun al awwal 12 ay ka tagtay sida imaam an-nawawi uu jasmiyay
في كتاب السير من الروضة وكجسميي مركو مقالة المدينة نبي سوق علي وعك أبو بكر باللقن ديي ولقن ديسيي إيه وبلال باللقن ديي أبو بكر إيه بلال حنون صدينه ملاريا كنا على يويكن بودين مقالة مركز سدا إسكال مقالة إسكال دوم بدن وعذر بدن وكناع بدن بيه فكان أبو بكر روحه إذا أخذته أبا بكر الحمى قندذا مركي قبطه يقول كيدها يا أيها أبو بكر محودها كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله بودها واكو كل امرئ قفو البا مصبح ويان مثل السلام في أهله أهل في صديق لغو سلام ومعنى أهل في صديق يا لغو سلام يا وبمعنى أنعم صباحا بالله يا صبح ونكسن تحية أهل الجاهلية سدا أهانجرت كل امرئ قفو البا مصبح ويمثل لغو سلام صبح ونكسن لله يا أنعم صباحا في أهله أهل في صديق لغو سلام والموت موت كان حال أدنى أويها مثل باشبدا من شراك نعله امرئ دعس كيسا إلاش كيسا حقنا أوغا باشبدا شراك وحالي إذا دعس كميش الصور كفرها لقا قليو جركي سآد بو قلوية جركي بو سارين هاي شراكو موت كان سيدا صوكا يوقفك قلوية اسمنا أوغا أهل كيبو كود احجراء ولا السلامة يا صوح وناك سنة وحلمت بالا ضحا غيري دا إني قلو دا هاي بو مركة تلماما يا حنونك مركة وحنون سنية إنه أجيري أيوك بقايا مرصاص واي مصبح في أهله واكو أما ليرا كل امرئ مصبح واي مثل ورا بناي وحال سينا يا شرب الغداء الصبح دي وحي اللعبة يلقوا قراعنا بالسينا يا في أهله كيس نحدي بالقوا ورا بناي مشارد الصبح دي هور اللعبة يوكل والموت أدنى من شراك نعله لوضع معنا يا قف والباء أهل كيس نحدي با الله سبحانه يا ولا سلامة يا صبح ونكسن بالله يا أما وحى الله ورابنا يا عنتدي لقوا قراعنا يا مشاردي بالله ورابنا يا أهل كيس نحدي والموت أدنى من شراك نعله أيضا موت كنا ودواشة بداية هي دعس كيس إلاش كيس وقعد دواشة بداية ساسو ده هي معناها الجيري ده مال دير متشر تقف كاسيغو لسو سلامة يا أما قراعدي يبيح الله ديارنا يو أيو موت كنا ودوبي هاي وكان بلال وحوها إذا أقلع عنه بلال حقي سأل حمى قنددي هدي لقفتشيو يرفع مد كوريالا يوها بلال عقيرته عتكي سكوريالا عقيرته بفتح العين وكسر القاف عقيره صوته وعتكي سمت كوريالا يوها يقول وحونا لها يا بلال قندد مركي يقفق أسيقنا وحونها ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وضفيل صاصودها ألا ليت شعري من أغاذو ألا ليت شعري من أغاذو هل أبيتن إن أنبرنا ليلة هبي هل أبيتن مبريد دونا إن أنبرين دونو ليلة هبي بواد تك وحولي أنجا هريره حال إذخر جيت كإذخر ليرا ذو ياي إيو وجليل جيت كجليل ليرا ذو ولا بقي ذو واي أو كبحي جيرين مقالة مكة إيو إيريد إذا كبحي جيرين مركا وتلماما يا هلو أو أقبو مقالة وكيمت ومقالة مكة مقالة شوقي إذا ويلا قبصدين عافمات بيكو قبين مقالة مدينة شوقي إذا ويلا قبصان واين ويكو حنون صدين مركا وحولي هي ألا ليت شعري من أقاذو هل أبيتن إن أنبرين دونو ليلة هبين بواد أنبرين دونو تك وحولي هريره حال إذخر جيت كإذخر لي راضو وكسو جاي إيو الجليل جيت كالجليل لي راضو وكسو جاي وهل أريدن ما أروري دونا أنا أو ما أروري دونا يوما مال
miyaaha majannatin majanno meesha la yidhaahdo biyayaasheeda ma aroori doonaa waa meel marka oo maka eriyadeedii ahwo wahal aridan ma aroori doonaa oo yowman maalin miyaaha majanno meesha la yidhaahdo miyaahdeeda ma aroori doonaa wahal yabduwan lii aniga ma ii muuqan doonaa shaamatun jabalka shaam la yidhaahdo iyo wa dafiirun jabalka dafiil la yidhaahdo ma ii muuqan doonaan buu yidhi waa laba jabal oo magaalada maka ilaa 3 ilgaarsiis u jiraan 30 ilgaarsiis u jiraan marka dhulal oo magaalada maka ka agdhow buu tilmaamayaa yani waxa weeyaan miyaha majinna ma aroori doonaa oo meesha ma tagi doonaa oo ma ii soo muuqan doonaan jabalka shaama la yidhaahdo iyo jabalka dafiil la yidhaahdo oo magaaladan duumada oo qandhada badan ma ka tagi doonaa oo dhulalkii ee caafimaadka badnaa ee magaalada maka iyo eeriyadeedii iyo meelaha un ma aadi doonaa saasuu asigana dhahayay macna qaala bilaal wuxuu yidhi marka asigoo marka dareenkiisa cabiraayo magaalada maka horta maxaa ka keenay gaalo unbaa ku dhibeen dhibaatadii gaalada ay kala kulmeen darteed ay magaalada maka oga soo hijroodeen gaaladii buu marka habaarayaa allaahumma yaa allahu allahayow lacan allow lacnad shaybata shayba lacnad shaybahoo ibna rabiica wa cutbata allow lacnad cutbahoo ibna rabiica wa umayata umaya allow lacnad umayahoo ibna khalafin kamaa akhrajuunaa siday nooga soo saareen allow u lacnad min ardinaa arladayni xaggii ay nooga soo saareen ilaa ardi alwabaa'i cudurka arladiisa intay ka ahna ay noogu soo saareen magaalada madiinuu u jeedaa arladii caafimaadka badneedoo magaalada maka bay naga soo saareen way nagu dhibaateeyeen waxay nagu qasbeen ardo cudur badan inaan annaga u soo hijroonay nagu qasbeen ilaahu kuwaa lacnad buu yidhi gaaladii ugu waaweyneed magaalada maka ayuu magacaabay arrintaa marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam way murjisay muhaajiriintii oo magaalada maka magaalada madiina u soo hijrootay ay magaalada la qabsan waayeen ku xanuunsadeen ay malaariya ku dhacday sida tan u hadlaayaan akhyaartii waaweyneed ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد اللهم بارك لنا في ساعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة البير اللهم يا الله الله يوم حبب إلينا الله نجعليسي المدينة مقالة المدينة نجعليسي كحبنا جعل كيني أوكل مكة مكة جعلنا صحابة رجي وقوة وينا بلال يا أبو بكر ويان رجع سدا واحد لايو إله مقالة المدينة نجعليسي سدا أن مكة وجعلنا هيوكل أو أشد أما سدا كدرنا شب ضم جعل كمكة أوقمنا جعل كدرا مقالة المدينة الله نجعليسي توا حبك إيو جعلك اللهم بارك لنا الله نو بركاي هدنا في ساعنا سوسكين نو بركاي وفي مدنا شاطين نو بركاي رزقيدنا هدنا نو بركاي مقالو أن لغو قاجونين أو لغو درغو وحا يربا يكوكو فيليهين أو إلهي بركة كوكو درايو إله مقالة سيدا سنوغا ديكو بارك لنا في ساعنا وفي مدنا وصحيحها magaalada caafimaadee lana anaga noo caafimaad cudurrada ka jiraan ilaahu magaalada ka suula magaalo caafimaad badan ilaahu nooga dhig wanqul xumaaha magaalada qandhadeedana guuri ila aljuhfa juhfa meesha la yiraahdo u guuri xilligaana marka juhfa gaala ayaa degnaayeen niman yahuud iyo mushrikiin baa degnaayeenoo halkaa u guuri buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam qaalad caaisha waxay tiri waqadimna almadiinata magaalada madiina ayaan galnay والحال هي مدينة أوبأ أرض الله إلهي أرض ذي سمده وقول عذر كبدن أيتا أرض إلهي أرض وقول عذر كبدن أيضا أحبان مقالة مدينة أنقل نيبيت لكن دعوذ النبي عليه الصلاة والسلام باوحى يكون قطعي مقالة عافمات بدن رزق جيدنا إلهي وبركي دعوذ النبي صحابتنا مركا وحي كدن بي مقالة مدينة أي مقالة مكة وحي كجعلالين مقالة مدينة أي كجعلالين waxayna rabeen inay magaalada ku dhintaan aysan makaba ku laabaninba taasay jeclaadeen markii dambe qaalad marka caaisha waxay tiri fakaana budhaanu waadiga budhaan la yiraahdo oo magaalada madiino banaankeeda maro wuxuu ahaa yajrii mid qulqulaaya ayuu ahaa waadigaas
najlan biyo doorsoomayna la qulqulayo biyo doorsoomay oo wasaq ah ee uraayo ayuu la qulqulayay waadiga budxaan la yiraahdo magaalada mari jiray tacanii caaisha waxay u jeedaa maa'an biyo maa oo aajinan ay mutaghayiran ee doorsoomay maxay u sheegaysaa arrinkan caaisho waxay u sheegaysaa waxay tilmaamaysaa sababta ay ku naqatay magaalada Madiina magaalo cudur badan biyaha magaalada dhaxmarayo waxa weeyaan cudurro ayaa ka dhalanaya marka magaalo waxay iska ahayd oo biyaha ay dhaxmaraan oo waadiga biyo mutaghayyir oo doorsoomay oo qurun uu iska dhaxmarayo kanaaco iyo malaria iyo waxyaalaha ay ka dhalanayaan magaalada noocaas ay ahayd macnaha waxa keenay inay naqato awba u arbilaahi taabay sababtii bay cadeynaysaa ummuna Aisha radiyallahu anha kitaabu as-sawm wa billahi tawfiq